طبعا haddii aad macallin tahay wax badan aad ogaan karaysaa ardayga haddii imtixaankii uu qoray ama waxyaabihii uu qoray aydan akhri karaynin natiijada uu keenay wax macno sameeymayso muhiimadda waxa weeyaan qofkan afar xaraf ba ha qoree laakiin waa in afartii xaraf uu qoray noqdaan afar xaraf ee la akhrin kara la fahmi karo laakiin haddii su'aalihii oo dhan uu ka wada jawaabo dabcan la akhri waayo wax faa'iido ma laha faa'iidada horta ay leedahay farta taas weeyaan si gaar ah macallimiinta oo kale hadda tasdiibaa la qaadaa oo markii iskuulka loo qaaday ama jaamacadda waxyaabo badan de macallinka waxa ugu horeeya priority koowaad waxa weeyaan handwriting-kiisa wey dib macallinka cilmiga ka buuxo laakiin wuxuu sabuurada ku qoray aan la akhri karaynin dabcan waxba lagama faa'iido ka dhiganta taas marka waxa weeyaan waa qodobka loo yaqaan farqixinta muddo markii aan waday sidoo kale waxaan soo kordhiyay oo soo ikhtiraacay waxa loo yaqaan signature-ka saxiixiyadu iyadu waxay ka dhalataa farqixinta طبعا قفك فرت سفي عن يقانو شروع ذي يقانا قوري كرا آخرين كرا سفي عن قوري كفرت قوري سنتاي صحيح هو يقانا وعيوب عنتها يكلي إن يرى ديزاين كذا تسيء عن النسخة دي